kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay meel kaste oo aad joogtaanba gelinkii hore ee maanta waxaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Itoobiya ka jiray dhaqdhaqaaqyo iyo kulamo isdaba jooga oo ay yeelanayeen saraakiisha kala duwan ee hay'adaha ammaanka oo ugu horeeyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaa kulankaasi ka horeeyay kulan xalay golaha amniga qaranka dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay isugu yimaadeen dhammaan kulamadaasi ayaa waxa looga hadlayay amaba looga doodayay colaadda xargaha goosatay ee ka socota deegaamada ay ku muransan yihiin maamulada Tigreega iyo Axmaarada inkasta oo go'aan rasmi ah oo dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay qaadatay haba yaraatee aan lagu sheegin amaba aan laga soo saarin go'aamadaasi haddana waxaa siyaabo kala duwan u hadlay oo iyagu arrimahaasi ka hadlay mas'uuliyiin uu ka mid yahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali oo isagu sidii la filayay ooga hadlay go'aanka dawladda federaalka ah ee dalkaasi Itoobiya ay ku wajahayso colaadda ka aloosan haatan deegaamada muranku uu ka taagan yahay ee ka dhex aloosan Axmaarada iyo Tigreega ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali haba yaraatee ma aanu sheegin go'aan rasmi ah oo dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay ka qaadatay colaadda iyo sidii loo difaaci lahaa deegaanka Axmaarada oo maalmihii la soo dhaafay qeyladaan xoog leh isagu u dirayay guud ahaanba maamulada kala duwan ee dalka Itoobiya dawladda federaalka ah iyo cid kaste oo ay suuragal tahay in ay ka caawiso colaadda kaga soo fool yeelatay dhinaca maamulka Tigreega ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa bartiisa Twitterka iyo waliba Facebooka uu ku baahiyay qoraal kooban oo uu kaga hadlayo xaaladda haatan ka soo cusboonaatay deegaanka Axmaarada iyo waliba deegaanka Tigreega waa dhulka ay ku muransan yihiin labada dhinac waxaana uu ku soo koobay qoraalkiisa eedeymo iyo waliba daleecayn uu u kala jeedinayo kooxda TPLF iyo sidoo kale beesha caalamka labadaasi dhinac ayaa mid walba waxa uu u jeediyay eedeymo waxaana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed qoraalkiisaasi kooban nuxurkiisu uu ahaa in ay TPLF colaadda iyo dhibaatada ay haatan wax walba ka hormarinayso isaga oo sheegay in iyagu ay qaateen dhinacooda xabad joojin hal dhinaca oo ay ku doonayeen in xaaladda lagu dejiyo ammaankana lagu soo celiyo sidoo kalena dadku ay fursad u helaan in ay beeraha tabcadaan lagana nafisiyo dhibaatada iyo waliba colaadihii isdaba jooga ahaa ee deegaanka Tigreega ka socday ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in marka la fiiriyo wanaagii iyo dhaqaaq iyo tallaabadii wanaagsanayd ee iyagu ay ku dhaqaaqeen inta beddelkeeda ay TPLF ku bedeshay dagaal iyo waliba colaad iyo in ay abuurto dhibaato iyada oo ka faa'iideysanaysa ama adeegsanaysa wadadii ay ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay ugu talagaleen hawlaha gargaarka in loo mariyo deegaanka Tigreega waxay soo qaadeen ayaa uu yiri wadooyinkii aanu ugu talagalnay in la mariyo gargaarka bini'aadanimo ee dadka Tigreega la gaarayo sidaas daraadeedna waxa muuqata sida uu ku doodayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in kooxda TPLF ay nabadii iyo wanaagiiba ka dorbiday colaad iyo dagaal waxa intaasi uu ku daray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in TPLF aysan nabadda haatan uba jeedinba ee waxa ay doonayso uu yahay oo kaliya dagaal in lagu kala food qaado amaba lagu kala adkaado Abiy sidoo kale waxa uu sheegay in beesha caalamku ay iyaduna dhinaceeda
muuqato mid dhagaha ka furaysanaysa ama indhaha ka daboolanaysa gulufka colaadeed ee haatan kooxda TPLF ay wado ee ay ku soo qaaday deegaanka Axmaarada isaga oo sheegay gabi ahaanba in ay jabisay ama meesha ay ka saartay xabad joojintii iyo baaqii nabadeed ee dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay ku doonaysay xasarada colaadeed in lagu bedelo wada hadal miiska dushiisa la isugu yimaado iyo nabadgelyo waxa uu sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay inay indhahooda ku arkaan waxa ka socda deegaamada u dhaxeeya Axmaarada iyo Tigreega halkaasi oo ay guluf ballaaran ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka kooxda TPLF iyagu haatan sida uu sheegay fursadda ka dhigtay amaba ka faa'iideystay baaqii nabadeed ee dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay ugu tala gashay in ay ku nafisaan shacabka Tigreega ee indhowaalaba dagaaladu ay ka dhex socdeen Abiy Ahmed Cali sidoo kale waxa uu ku eedeeyay kooxda TPLF in ay dagaalka u adeegsanayso caruur yar oo ay dabka ku shubayso kuwaasi oo sida uu sheegay iyagu aan waxbaba kala soconin waxa ka socda guud ahaanba dalka Itoobiya iyo waxa ay yihiin dagaalada haatan ay wajahayaan ee kooxda TPLF ay u adeegsanayso waa sida uu ku doodayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo isagu maanta qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka taasi oo uu kaga hadlayay xaaladda ka soo cusboonaatay dhinaca iyo deegaanka Axmaarada haddaba marka aynu ka imaano bal hadalladaasi ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali ayaa waxaynu yar milicsanaynaa amaba aynu isdul taagaynaa qaabka hadalka uu u dhigan yahay oo marka aad fiiriso ay ku soo baxayso qorshe siyaasadeed oo ay qaadatay dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya kaasi oo ilaa iyo haatan sida uu u eg yahay muujinaya in dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay doonayso in ay qaab laba wajiileyn ah oo la dhaqanto maamulka Axmaarada iyada oo marnaba ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali aanu soo hadal qaadin in ay qaadayaan tallaabo military oo degdega oo halkaasi ay kagala hortagayaan kooxda TPLF waa uu sheegay inay tallaabo qaadi doonaan tallaabada ay qaadayaan se kuma aanu sifaynin tallaabo military amaba weerar ay dib ugu qaadayaan kooxda TPLF iyo guud ahaanba deegaanka Tigreega waxaase uu muujiyay in uu ku soo koobo dhammaanba nuxurka warmurtiyeedka ama qoraalka uu ku baahiyay boggiisa Facebooka iyo Twitterka cambaarayn iyo in uu eedeymo jeediyo waa suuragal marka la fiiriyo eedeymahaasi in ay ku ladnaan karaan guluf dagaal oo la doonayo in la qaado balse marka la fiiriyo qaabka ay wax u socdaan ilaa iyo hadda saraakiisha ciidamada iyaguna ka hadlay dhammaantoodba waxa ay ka warwareegeen inay si cad u sheegaan sidii horeyba ra'iisul wasaare Abiy Ahmed markii uu dagaalka qaadayay oo u dhihi jiray waxaan naga dhamaaday samirkii waxaan maraynaa meeshii ugu dambeysay waxaan taaganahay khadkii cagaar casa waxaan taaganahay darbigii ayaan soo taabanay wararkii looga bartay oo kale haba yaraatee midnaba ma aanu soo qaadanin waxaana afkiisa uu ka dhowray in uu sheego nooca tallaabada ay qaadi doonaan ee ay doonayaan in ay ku wajahaan gulufka cusub ee kooxda TPLF ay ku soo qaaday deegaanka Axmaarada gaar ahaan meelaha muranku uu ka taagnaa haddaba marka la fiiriyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali waxaa hubaal ah in taatikada siyaasadeed ee meesha ka muuqata ay muujinayso in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed aanu doonaynin in haatan
uu mar kale si degdega dagaal u galo halkaasna ay ku wiiqanto awoodda iyo hanaanka ama nooca siyaasadeed ee qowmiyadda axmaarada maamulka axmaaradu siyaasadda firfircoon ee dowladda federaalka ah uu marar kala duwan kula loolamay amaba mar walba ay isku dayaan in iyagu ay isu muujiyaan hoggaanka rasmiga ah ama hoggaanka dalka Itoobiya kaalinta ay ku leeyihiin in uu meesha ka saaro si ay taasi u suura gasho ama ay macquul u noqotana waxaa suuragal ah in ra'iisul wasaaruhu si ku talagal ah uu u doonayo in ay darbaaxo military iyo waliba mid siyaasadeed ay ku dhacdo maamulka axmaarada halkaasna siyaasad ahaan ay ku wiiqmaan oo ay noqdaan kuwo markaste oo loo baahdo iyagu noqda kuwo ku daba tukada amaba qaata awaamiirta dowladda federaalka ah si toosa lagana nabadgalo sharkooda iyo isku daygooda ay ku doonayaan inay ku hunguriyayaan kursiga ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali xilligan oo lagu jiro waqti xasaasiya doorashadii dalka Itoobiya natiijadeedii lagu dhawaaqay intii badnayd ama 85% wax ka badan waxa suuragal ah in ay isa soo sharaxaan siyaasiyiin ka soo jeeda qowmiyadda axmaarada kuwaasi oo kula loolami kara xilka ra'iisul wasaarenimada in maaragtayto ay qabtaan oo ay ku soo baxaan sababtoo ah xisbiga BB ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu gudoomiyaha u yahay amaba hadda uu isagu garwadeenka u yahay malaha gudoomiye ma qabsanin xisbigaasi shirweyne malaha sharci iyo nidaam xisbiga u yaala oo lagu kala socdo waxa lagu socdaahay oo kaliya waa aragtida ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali iyo xulafada isaga haatan garabka u ah noocay doonaanba ama meeshay doonaanba ha ka soo jeedaane sidaas daraadeed qowmiyadda axmaarada waxa ka suurowda oo laga yaabaa cabsida ku jirtaahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inay tahay inay isku dayaan in ay ku cidhiidhiyaan kursiga oo ay isa soo sharaxaan si marka taasi ay meesha uga baxdo ayna u noqdaan kuwo u baahan mar walba isaga una tanaasula haba yaraatana aan isku dayin in ay cidhiidhi geliyaan kursiga ra'iisul wasaarenimo ee isagu hadda uu ku fadhiyo waa inuu saaro culays military iyo mid siyaasadeed oo kaga imaanaya dhinaca cadowgooda rasmiga ah ee Tigreega kuwaasi oo iyagu haatanba sida muuqata pressurkii ugu cusla ku haya qowmiyadda axmaarada arrintani ma aha mid hadda anigu aan iska leeyahay ama se aan anigu maaragtay aragtidayda aan ku soo gudbinayo balse waa mid ay aaminsan yihiin axzaabta mucaaradka ah ee deegaanka axmaarada kuwaasi oo iyagu aan la gabanin sheegayna sababta ciidamada militariga dalka Itoobiya ay dhabarka ugu sii jeedinayaan kooxda TPLF inay tahay qorshe siyaasadeed oo la doonayo in lagu wiiqo awoodda deegaanka axmaarada sidaas daraadeedna waxa ay ugu baaqeen shacabka dhinacooda in ay u diyaar garoobaan sidii ay u difaacan lahaayeen sharaftooda iyaga oo aan cidna fiirinaynin waxay muujiyeen aaminka bax amaba inay ka aamin baxeen dowladda federaalka ah ee uu garwadeenka u yahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali waxayna si cad u sheegeen in qorshe dhagaraysan amaba qorshe loogu talagalay in lagu wiiqo awoodda qowmiyadda axmaarada ay jirto oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali ay ku talagal ka tahay waxa uu samaynayo amaba tallaabada uu qaadayo ee ay ciidamadii militariga dalka Itoobiya kolba banaynayaan goobihii loogu talagalay iyaga oo waliba dhinaca kalena aan qaadanaynin hubka iyo agabkii military ee si caadiya hubkii ooga yaacaya taasi oo ay ku tilmaameen wax haba yaraatee aan caadi ahayn say dooni ba ha noqoto ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali oo la filayay cod dheer in uu ku sheego go'aanka dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya waxa uu ku gaabsaday eedayn
iyo dhaleecayn uu u kala jeediyey kooxda TPLF iyo beesha caalamka waxaa kooxda TPLF uu ku eedeeyey in ay samaynayso weeraro iyo dagaal ay ku samaynayso deegaamada axmaarada iyo tigreegu ay ku muransanaayeen waxa uu sheegay qaabka iska caabinta inay iska caabin doonaan iskana difaaci doonaan waa marka la fiiriyo hadalladiisii ugu kululaa amaba ugu adkaa ayaa waxay ahaayeen in ay iska difaaci doonaan iska caabinna ay kala hortagi doonaan haddaba su'aashu waxay tahay waa xagee goobta la isaga caabiyayo amaba la isaga difaacayo ma marka ay soo dhammaystirtaan oo ay dhammaanba qabsadaan deegaankii horay uga tirsanaa ama dhammaanba xuduudaha deegaanka tigreega wixii ka horreeyey dagaalkii 4 November marka ay wada qabsadaan miyaa iska caabin lagala hortagaya mise waxaa laga caabin doonaa oo lagula dagaalami doonaa oo dib looga saari doonaa deegaamada ay haatan qabsadeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaa muuqata in uu ulmugdi u tuuray qoladan lagu magacaabo amxaarada oo dhinacna uu u laab qaboojinayo haddana mar walba uu ka fogaanayo in uu difaac rasmiya u sameeyo qowmiyadaasi axmaarada una ka jawaabo calaacalka iyo weliba qayladhaantii ay maalmihii la soo dhaafay oo dhan ay iska daba wadeen ee ay u soo gudbinayeen dowladda federaalka waxa marka muhiimadu ay tahay in nuxurka qoraalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali uu yahay qowda maqashii waxna ha u qaban axmaaro qowda maqashii oo inaad ka hadashay oo aad eedaysay cambaaraysay dhaleecaysay beesha caalamka iyo TPLF oo aad labadiiba maaragtay to cambaar dusha kaga tuurtay u muuji haddana si cad ma jirto go'aan rasmiya oo dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ay ku sheegtay in ay kaga hortagayso kooxda TPLF gulufka ay wato waan soo qaadan doonaa haddii uusan ilaahay ma hadhin taliyayaasha ama madaxa howlgallada gobolada waqooyi ama madaxa howlgalka ka socday deegaanka Tigreega General Bachar Dabale ayaa isaguna ka hadlay isaguna eedeymo kale ayuu meel u jeediyay isaguna waxa hadlay nin lagu magacaabo gidinet wax noocaasa oo maaragtay to aan filayo inuu yahay afhayeenka ama madaxa xiriirka dadweynaha ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Itoobiya ayaa isaguna hadlay isaguna sidoo kale waxa uu ka gaabsaday in uu maaragtay to cadeeyo in talaabada ay qaadayaan ciidamada militariga dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya marka laga yimaado hadallo iska jilicsan oo iyaga naftirkoodu kuwaasi ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali uu ku hadlay lamida hadii uusan ilaahay ma hadhin barnaamijyada ama warbixinada soo socda ayaan ku soo qaadan doonaa hadallada iyo qaabkii ay u hadleen labadaasi General Bachar Dabale madaxa howlgallada gobolada waqooyi ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale madaxa xiriirka dadweynaha ee wasaaradda difaaca dalkaasi Itoobiya General Gidinet waa galad xasan oo daaha gadaashiisa idin kala soo hadlayay waxaana si toos ah noogala socoteen warbaahinta madaxa bannaan ee Dalajire TV tan iyo warbixinada iyo wararka dambe